waxa in marka jaamacadii waxa loo baahday muddo jaamacadahan aynu ku soo caanamalay in jaamacadii la hagaajiyo in tayadoodii kor loo qaado in ardayga jaamacadda Hargeysa ka soo baxa uu galo jaamacadaha dibadda isagoo qualification kii la galo jaamacadii hal la hagaajiyo tayadeedii hal la hagaajiyo dabcan tayadeeda marka la hagaajinayo lacagtu way kordhaysaa Soomaha lacagtii kordhisay aad bay uga qayliyeen maalintii hore waad ogeydeen iyagoo taayir gubay aniga la ii kaxeeyay halka la iga kaxeeyay waan u tagay maxaa dhacay baan idhi waxay yiraahdeen annagoo imtixaan ku jirnaa lacagtii la nagu kordhiyo waraaqa la nasiyo maanan diidin lacagta marka shir baan la galay oo hoolkii baan fadhiisanay mala media hadda dib u raacdan wad heleysaan waxaan ku idhi maxaa daran waxay wan ognay jaamacadda in la hagaajinayo wan ognay jaamacaddu in lacag u baahan tahay waanu garaabayna laakiin qaabka la noogu kordhiyay qaab wuxuu ahaa khaldan annagoo imtixaan ku jirnaa waraaqihii la noo qaybiyay waxa la neeyay lacagtii la idinku kordhinaya qoladiina un baa la idinku kordhinaya waxyaabo dabeedna cabashadoodii baan soo qaaday waxaan ku yidhi haddaba waxaanu yeelaynaa jaamacaddii baan wareysanay qoladii jaamacaddu waxay isma bixinayso jaamacaddii in albaabada loo xidho iyo in dee sidii jaamacadaha kala yeeleen lacagtii la kordhiyo waxaan ku yidhi waa lagama maarmaan madaxweynahan idinku tegaya iyo wasaaradda isku tagayo waxbaanu semesterkan ka bixinay laakiin semesterka dambe u diyaar garoob hay'aba yiraahdeen $550,000 ayaan wiigii hore ku wareejiyay jaamacadda oo semesterkii lacagtii laga bixiyay oo jecelahay jaamacadda inaad soo wareysataan oo madaxweynuhu qoray $550,000 oo caruurtii ayaantii cali sayidi si naxdina la noogu sheegay maanaan u diyaar garoobin waxay markii soo xisaabiyeen waxay yiraahdeen $550,000 weeyaan $550,000 oo aanu shilin ka maqneen ayaanu ku wareejinay jaamacadda Hargeysa oo siinay semesterkii aan ballan qaadnay waana ka bixinay inta kale laakiinse idinkiyo jaamacaddu waxa kale aniga ii dheer waxa la yiri wasiirka waxbarashadu ardayda la safata ardayda lama safan ardaydu waxa weeyaan markay ardaydii booliisku isku soo baxsadaan markay halkaas soo gaadho anigu ardayda la safanaya de booliiska ana la hadlay ardayda in joojiya rasaasta laakiinse jaamacadda waxaanu ku balanay inay ardaydaas iyagu ay isku ekaadaan xerada inta ku jirta 55kii aanu anagu ballan qaadnayna waanu bixinay maanta marka tan timi waxa weeyaan waxaanu arkay inay ardayduna way daraad arday baa ii timid in gudiya waxaan ku yiri intii noo dhan ii kale wixii aynu isku ogeyn mise wixii ka duwan intii aynu isku ogeyn soo iskuma ogin haaba yiraahdeen laakiin lacag yar oo kale inta halkan waxaan ku yiri idinkoo ka balaaran ii kale hoolka soo fadhiista ii sheega jaamacaddeenu u yeelina wixii khalad wixii aynu ku heshiinay ka duwan waynu ka wada hadlaynaa waxa ku xigta maanta inay magaaladii fawdad galiyaan de waxa weeyaan waa khalad ardayga jaamacad ku jira sugaya inuu wadankan madax ka noqdo mas'uul ka noqdo inuu qowlkiisina ixtiraam waayo in isagoo loo diyaariyo leeyahay lagu la hadlay waxde wixii aad ballankii aad gashay adna ka soo bax ballankii anagu aanu galayna waan ka soo baxnay semesterkii lacagtiisii waa la bixiyay wixii kale dheeraad ka hadlaysaan keena diiday ee doonayay in magaalada rabshad galiyo xaqiiqadii waxa weeyaan waa gardarro cadaan waxa weeye sida wasiirku idin sheegay jaamacadda Hargeysa waxay ka mid tahay jaamacadaha fiigeedu ugu hooseeyo dalkeen halka jaamacadaha kale ee wadanka tawgu yar laga qaado 250 300 haddaan idin sheego ardayda cabanaysa iminka ICT go kale 180 baa laga qaadi jiray ilaa 190 210 baa laga dhigay price ugu badan ee iminka waxa weeye waa medicine waxa laga dhigaa 235 saan ku hayna information medicine ugu yar 300 baa laga qaadaa wadanka markaan isku soo wadno kulliyadaha business oo kuwa ugu badana iyo economic oo kale waxa rate-kooda laga qaaday 157 ilaa 200 baa la gaarsiiyay ilaa haddaba aynu joogno way ka hooseeyaan jaamacadaha dalka inta kale ee ma lagu dhigto ardayda ku dhigata sida awgeed waxa tiri waa soo noqnoqonaya waa ilaa 3 jeer ay soo noqnoqdeen saddexdaba waa la damiyay saddexdaba waxa la doonayay in la ilaaliyo waa la eegaya ardayda haynteeda waxa la eegaya numberka ardayda meesha ku jira waxa la eegaya wasiirku way ka qayb oo laga ka qayb qaadan markii ugu horeysay joojiye aan ku nir jaamacaddu waxay ku shaqeysaa ee u badan ee priority-ga oo fiiga ardayga laga qaado dawladda dhexna ma yareysatay waxay siisaa jaamacadaha waa la subsidize gareeya lacag baa la siiya oo central budget-ka ugu jira
وهرجيس number 1 كتر training كان سينا teacher training كان سينا وحيابها بروجكتات كلا أردن أو جامعة هرجيس number 1 كدقنا معلمين تانو grade كرينا وحيابها فرق بدن بنصينا ونكسب صار هرجيس هذا النوع سعر تحبرشة markay sidaa tahay waa loo sheegaa maamulka in badan baan runtii iska horan maamulka jaamacadda oo cadaadis ku helay aan la maamuli karin macnaheedu waxa weeyaan arday ku dhiganaya medical ama science dhiganaya oo bixinaya $190 de maxaa loo dhigi karaa waad ogtiina caafimaadka oo kale waa meelaha ugu qaalisan ardayga waxa laga qaadaa $600 ardayda waxaanu ku niri maamulka oo aan kula tashanay board baa loo sameeyay dawladdu u sameeyay board baa la shaqeeya in quality-gooda kor loo qaado ardayga fiiga yar waa la saaraya laakiin maxaa la sameeyaa dawaan quality-gana kor loo qaada diyaar bay yihiin in maamulku quality-ga kor u qaado oo macallimiinta tayada la keeno oo improvement lagu sameeyo education-kooda marka waxaan ku talin lahaa iminka meesha ugu sareysa 250 haddaan eego jaamacadaha kale ee wadanka ta ugu hooseysa waxay qaadaa 250 mid kasta 300 baa kamid ah qaar ba 400 qaada marka waxa weeyaan reedku ma aha ardaydan pressure la waa jaamacada dawladeed ay gacanta ku hayso dawladda sidee markaas suuragal u tahay in jaamacadihii lala mid ah jaamacadihii kale ee private ka ahaa sidee maxaa sababay in mar kasta ay soo noqdaan mudaharaadadan iskuulada dawladda hoose iskuulada dugsiyada hoose iyo jaamacadu amsare horta iskuulada hoose ma mudaharaad miyad maqashin sanadahan iyagoo dhigay taa adaa og halkaas ka sheegayso way ma jirto imika inta halka fadhiyay labadii sanadood oo dambeeyay mudaharaad ma dhicin ardayda iskuulada hoose kuwa secondariyada waxa weeyaan waxaan dawladani markay dhalatay macallimiintu may gunaysneen dhibaato badan baa haystay markii fiigii laga joojiyay intii macallimiintii la gunaynay rabshado way dhici jireen ardaydu way soo yaaci jirtay laakiin intii iskuul walba macallimiintii loo guneeyay ee buugaagtii ardayda loo qaybiyay ee waxbarashadoodii la dhameeyay waxaas ma jiraan taa marka adaa og halka adaa sheegi halkan ardaydan soo noqotay ee mudaharaadka dhigaysa tan jaamacaddan ku sheegaya jaamacadda Hargeysa waxay heshaa sidka ugu balaaran ee dawladdu bixiso waxa la siiyaa 200 milyan baa sanadkii la siiyaa waxa la siiyaa wasaaradeeda ugu yaraan 50 qof ayaa master's degree ku qaata waxay bixiyaan $300 Nairobi University baa wada laakiin jaamacadda Hargeysa ku dhig arday kastoo dhiganaya ama hay'adda ka bixinaysa shaqaalaha iyaga master's degree ga bixisa ama waxa bixin 300 kuwa shaqeeya iska bixiya ee wasaaradda ka shaqeeya $300 bay bixiya jaamacadda Hargeysa qaadata intaas waxa la siiyaa jaamacadda Hargeysa iyaguna waxay noo sameeyaan ardayda saboolka ah ilaa 35 arday oo sabool ama agoona ay bilaash noogu dhigaan bal hadda ka waran kuwii masaakiinta u qorneen lacagta laga qaadin haday mudaharaadku ku jira على أي حال مركا وحكلوا لسمية لبيه طبعا أرضيه كبحسوا هيئة إنجليزي يجينا جامعة هرقيسة لسيا جامعة هرقيسة وامد أنو دوني إنه إن جامعة هكلا لم يدنقطع أما كونك سناتو لكيس أرضية هذا إنه أرضية كستو أن وديار هين إنه وحبرتو جامعة هين نجح مايين وقلانو وأنا نيتن عرّي له هذا ما يسكت داير عكس أنا كبحيني مين جامعة هرقيسة نو ما أنت وحن كوري حويا وإنه قان كسعدا وإنه أرضية كلا بحدا أرضية وديار إنه وحبرتو مستقبل دونية وإنه سيدا أي تحي أسلوبت أرضينimada uu natusa udeedna wixii dhibaato ee gaar ah halkaas aan u fadhinaa maalin oo arday baan xaliileynaa hawlihiisa halka inuu soo fadhiiso inuu yada aniga dhibaatada gaarka ah bay haystaa laakiin magaaladan shiidaya waxaan jabinayaa in jaamacadna waan ku jiraa qaar baa lacagtii laga bixiyaa kuwii lacagtii laga bixinaya qaar ku jira de waa lama ogolaanayo jaamacad حتى لا غير قادسين ارتدن حلم ما arday baa xidhan والله حلم هذا وحنا ولا security game كلامي ardayda waa la kala saarayaayo dhageysta ma isuga ardayda la kala saaraya wixii deejana wixii isu yahayna ta wala eegaya ama dad iska socday ama qaar laakiin sidii qofkii damage geystay ama dhibaato geystay sharciga wala eegaya bal waxa sababta keentay halkan iigu yimaadeen daraad bay yimaadeen waxay waan ku imanayna bal waxa keenay inay shiidaan magaalada ha sheegaan oo ha yiraahdaan wala nala hadi waayxda ay adigan markaad hay xagad ka socota sheeg markaa kalsan
هي صعب weligay ma maqlin taan صح ardayda waxa ku kordhisay fiigi yani chance iyo umeydaan siinin ay kula doodaan maadaama inta badan ay dhigatahay tahay ardayda dan yarta maanta waxa loo adeegsadaa rasaas marka sabay ina muuqata ardaydan fursad u siinin inay idin doodaan oo ka doodaan kor u qaadida lacagtaas am suug fursad baa la siiyay waa semesterkii hore kala kordhiyay lacagta adu kalsan ma joogin markaas oo maaha maalintii hore taayiradii waxa rabshad isbigeen waa 3 bilood ka hor maalinta waxaan idin yiraahdaa hadalkayga dhageysanaysan idinkuna u dhaqma sidii qof journalist oo wax baadhayo wax run doonaya hayska u dhaqmina sidii qof iska waxa weeyaan 3 bilood ka hor waa semesterkii hore kay mudaharaadka dhigeen rabshada dhigeen aan u tagay aan la hadlay aan u shirnay aan ku yiri maxaa xalin mudane wasiir intii mudaharaadka ay dhalinyarada sameeyeen socday hawlahooda dabcan wasiirka arrimaha gudaha iyo maayirka caasimadda ayaa xalin iyo hawsheeda waday waqtiga adiga albaabka ugu xidhna sidee kula muuqata albaabkaygu ma xidhnayna wuu furnaa ardayduna waa ku qofka ugu badan ee arkaan maalin rabshadi dhacdo un bay dadka kale sarkaanay waa aniga darfaad bay ila fadhiyeen baan ku yiri iyagoo gudiya aan ku yiri ii kaalayo soo fadhiista maan oran soo shiida magaalada waxaan ku yiri halkan kaalayo soo fadhiista ardaydu way cabanayaan oo waxay leeyihiin waxa lagu dalacay fee maamulkiina wuxuu u baahan yahay sidaad sheegtay kharash jaamacadii lagu sii wado seebaa loo xallin karaa waxaa loo xallinayaa ardaydii simis eeg maalintii horeenu shirnay mar kalena waad ku celinaya markaad si u soo fadhiistaan imika haddaan idinaado waxaase laydinka doonaya oo tidhaahdaan imika ma samaynayne laakiinse 3 bilood halana siiya jaanis soo go-aan maaha iyo haddaad tidhahdaan weliga ayama bixinayne yaan lanagu talagelin soo laba kala jaada maaha calaa ayi xaal waxay yidhahdeen kan baa lanagu dedejiyey halanaga daayo halanaga bixiyo waanu ka bixinay ta kale facultiesku isku mid maaha jaamacadda waxa laga doonayaa iyada lafteeda imika halkaa u faraya facultieska aanay gacanta ku haynin ay leeyihiin lacagtiina ma bixinayaan ardaydiina waa rabshadi ku sameeyay jaamacaddu maaha khasab inay intaas soo kuliyadood hayso haddaanay kharashkii aanay hayn karin wayna kuliyadaha badhinta soo maaha ta aan bixin karin ardayga hadduu leeyahay jaamacad baan dhiganayaa oonu awoodi karin ee qaarmo galaan jaamacadee dee waxay shaqay doontaa qaarna jaamacaday galaan ardayga jaamacad galay eenu 400 oo arday aanu agoon iyo lacag ma haysto aanu jaamacada ugu kala qaybinayno lacagtii ka bixino eenu haddana qaar ajnabi u barinay in lacagta laga bixiyo ee haddana semester dhan lacagtii laga bixiyo ma inay nashiidaanba